السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta mowduuceena aad buu koobnaan doonaa. Waxaan rabaa inaan afarta qodob idin sheego. Ma rabo inaan hadal badan iraahdo si aan muuqaalka u dheereeyo. Intaan mowduuceena bilaabin, fadlan muuqaalkan like noo saar. Sababtoo ah dhiirigelin bay noo noqonaysaa. Kuna soo biir kanaalkeena xog baahiye adigoo subscribe taabanaya. Maanta waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa afar qodob oo caddeynaya in Abu Fallax uu Soomaali yahay. qodobka koowaad waxa waaye magaciisa. magaciisa waxaa la yiraahdaa Xasan Suleymaani, waana qaabka ay Soomaalidu u abtirsato. Tusaale, ani magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Cabdi, laakiin carabta magacyada waxaa u dhaxeeya bin. Tusaale, anigu haddaan carab ahaan lahaa Maxamed bin Cabdi baa la oran lahaa, ee Maxamed Cabdi lama oran lahayn. walow aan carab ahay sida awoowayaashay fac ka fac inooga sheekeynayeen. Abu Fallax magaciisa saxda loogu yeero waxa waaye Xasan Suleymaani, ee ma ahan Xasan bin Suleymaani. taasi waxay caddeyn u noqonaysaa in wiilkan uu Soomaali yahay. xitaa magaca aabihii Suleymaan ma ahan, ee waa Suleymaani. Suleymaanina carabta lama baxdo, badanaa Soomaalida la baxda. Tusaale, Berberaawi, Burcaawi, Kenyaawi, Suleymaani. waad u jeedaa inay isku soo qaab eg yihiin. sidaan sheegay, magacyada carabta binu baa u dhaxay. Tusaale, Maxamed bin Salmaan. caddeynta koowaad aan ku hayo waa taas. caddeynta labaad aan ku sheegay waxa weeye in Abu Fallax uu Soomaali yahayna. caddeynta labaad aan ku sheegay waxa weeye sawirka halkan kaaga muuqda. sawirkan waa Abu Fallax oo yar, bal eeg aqalka ka dambeeya. aqalka qaabku u dhisan yahay waa qaabka ay Soomaalidu u dhisato. xitaa aqalka maro ayaa saaran. badanaa carabta sidaa laguma yaqaano. taasina waxay caddeyn u noqon kartaa in Abu Fallax uu Soomaali yahay. caddeynta saddexaad waa magaca walaashiis. walaashiis waxaa loogu yeeraa Ifraax. badanaa carabta magaca Ifraax lama baxdo, oo magaca Ifraax waxaa caan ku ah Soomaalida. taasina caddeyn u noqon kartaa in Abu Fallax uu Soomaali yahay. caddeynta afaraad ee ugu dambaysa waxa waaye qaabka u eg yahay walaalkiis. walaalkiis markii aad aragtid waxaad ugu dhaaranaysaa inuu Soomaali yahay. bal eeg sawirkan. xitaa Abu Fallax naftirkiisa markaa aragtid inuu Soomaali yahay baad ugu dhaaranaysaa. taasina caddeyn waa noqon kartaa. waxaa jirtay muuqaal aan maalin dhow kaga hadlaayay Abu Fallax waraysi laga qaaday. waraysiga markii aad dhageysatid waxaa ku caddaanaysa in Abu Fallax uu Soomaali yahay. muuqaalka haddii aadan daawan, qaybta hoose ee commentiga ayaa linkiisa kuu soo dhigayaa. halkaa ka soo daawo. intaas ayuu mowduuceena ku eg yahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.